الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرسيني أفراد كمدها دروستين امتحاناهيد كصاب سنيد آدابتي أخلاق دا قفك مسلم كا إلهي سبحانه وتعالى وجدي darsigeenu maanta waxa uu ka bilaabmayaa dadku marka ay meel wada joogaan ama ay wada fadhiyaan waxa dhacda mararka qaar kood qofka in waxyaabaha qaar kood ay ka muuqdaan waxyaabo laga xishoodo laga khajila waxa dhici karta qofkii inay neefi ka soo baxdo ama cawradiisuba inay faydanto waxaa dhici karta wuxuu cabaayay inuu ku saxdo oo ku margado ama cunto uu cunay waxaa dhici karta qofka inuu dhaco sida inuu turunturoodo kale ama inay wax ka soo dhacaan waxaa dhici karta qofku inuu wax jiidho oo wax u daadiyo waxaa dhici karta sankiisa ama afkiisa inay wax ka soo baxaan waxaa dhici karta in meelaha qaar kood ay wax kaga yaaliin qofka muslimka hadaba aadaabta la gudbooni maxay tahay waxyaabaha noocaasi haddii ay uga muuqdaan qofkii ay wada joogeen ama ay wada fadhiyeen islaamku waxa uu ku dadaalaa qofka in la dhowro qalbigiisa iyo damiirkiisa oo laga ilaaliyo waxyaabaha uu ka murugoon karo ama uu dhibsan karo qalbi jabka ku ah ومن مكارم الأخلاق أخلاق ذاتيدا وناكسا waxaa ka mid ah التغافل qofku inuu isdhaafiyo oo mid aan ogeyn oo kale uu ka dhigo عن ظهور مساوئ الناس dadka waxyaabaha aan fiicnayn ka muuqda ee ka soo ifbaxa يوم يبدو وحيابها موقظة في غفلاتهم حالتها ددكو آنيس أغين ومن كشف عورتنا قفك عوردي سويني فيدنتو أو خروج ريحنا أما النافين كصوب حضو نفتاسي لها صوت رواقي عدله أو ريح أما أرله ودواقي دي لمقلية سنقدي دي haddaan la maqal la urteedii dadkii meesha wada joogay ay soo gaadhay waman sami'a qofka maqla dhalika neefta qofka maqla oo faadhara muujiya at-tarasha dhaga cuslaan at-tarash waa qofku inaanu dhaga lahayn laakiin maqalkiisu culus yahay qof dhaga culus oo maqlahayn qofka iska dhiga أو إنه ما مد هردي وكلا يسكدقو عندها يسكو قبطة أو الغفلة ما وحين أنو أقيم با وأنو لصع عنبا موتشستا ليزيل سوج أسولي خجل الفاعل وفكي أرنتها السمية النفتو أي كصوب حدي أما عوردي سوي فيدنتي خجلات دسوق بيو كان ذلك أرن كاسوح وهذا من مكارم الأخلاق أخلاق ده وناكسنا إسلام كوكوباقيو متكمدة قفك هدي أرن خلدان أما في عينين يكدعدو وأنو قصدين ضد كمسلمين تايوين خجلات ده كبيان لكن اللي قصله أما اللي دعايديو أما اللي جيسو أما صحن الله الله عوردي سيو موقتت صالحان si xun loola hadlo si aadaab iyo asturitaan ku jiro aan loogu sheegin arrimaha noocaasi waa arrimo akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta isu imaanshaha iyo wada fadhiga dadka islaamku uu sharciyeeyay ka hor imanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen isagoo dadka ka waaninaya qosolka ay ku qoslaan neefta dadka ka timaada لما يضحك أحدكم مما يفعل رسولك عليه الصلاة والسلام دتك عقل جودا أيوه هذا بتكين محوق قصلا يوحي يسوق الصبيبة هذه غف كان في كتمي
oo la maqlay sawdkeedii ama urteedii ay ku soo gaadhay adigaba taasoo kale way kaa dhacdaa marka caqliga saxdi muxuu keensanayaa inaanad ku qoslin oo qofka aanad ka khajilsiin xaaladaha kale aynu sheegnay oo dhammina waa la mid waxa sidaasoo kale iyaduna la mida qofka haddii ay cawradiisu muuqatay qofna qof caqli leh oo miyir qabaa isagoo is-og cawradiisa intuu faydo dadka u soo bandhigi maayo isagoon u qastiin baa dhici kartaa inay maradu ka dhacdo ama ay ka faydanto waa in qofka la baraarujiyo oo arrinta noocaasiya la dareensiiyo si ay aadaabi markaasi ay ku jirto amaba se waa in la iska dhigo sidii qof aan arkahaynoo xaalkiisa aan la soconba oo laga jeesto ilaa isagu isdareemayo in cawradiisii la daawado indhaha lagu qabtaa ma bannaana in qofkii laga nixiyo si xun loogu sheegaana iyaduna ma bannaana dadka akhlaaqda wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu nicmeeyey uu ku arsaaqay waxa ay leeyihiin sifaadka noocaasa haddii ay dhacdo qofka laftiisa inay wax ka soo baxaan ama cawradiisu ay muuqato isagoo dadka la fadhiya oo arrintaasi dabeetana uu ogaado si uu ku ogaadayba isaga laftiisu waa inuu qalbigiisa dhowro oo arrinta noocaasiya siduu isu dhaafin karo waa inuu isu dhaafiyo oo waa inuu yidhaahdo hadal kaftan oo kale uu iskaga biiyo khajilaadda qalbigiisa dhaawaca u geysan karta waxaa imaamu dahabi uu ku sheegay kitaabkiisa siira aclaami nubala tarjamada sheekh lo odhan jiray hishaam ibnu camaar ayaa rag baa ugu tegay beertiisii isagoo dhex jooga oo meel saaqiyada dul fadhiya deetana maradii baa ka dhacday marka way ku caddeeyeen oo waxay ku yidhaahdeen cawradaadii baa muuqatay qarsa bay ku yidhaahdeen ismuu dhibina quyar intuu cawradiisii qarsaday ayuu iyagii ku yidhi miyaad arkayseen markaasay yidhahdeen haa haddaa weligiin bakoor idinku dhici mayso indhaxanu weligiiba idin heli maayo buui naftiisi uu khajilaaddaa kaga biiyey misaaxa amaba se kaftankaasi sidaasi u fudud islaamku wuxuu ku dadaalay qofka muslimkii inuu noqdo qof nadiifa waxyaabaha uskaga ama wasakda u soo jiidi kara shakhsiyadiisii in la liido ama dadku ay karaayeystaan oo ay nacaan sabab ugu noqon karana islaamku uu kala dagaalamay waxaa jira arrimo fara badan oo ka mid ah arrimaha laga soo gaadhay ambiyada iyo rususha u dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhammaantoodba qofka bani aadamka nadaafadiisa iyo quruxdiisa muuqaal ahaaneed ku saabsan waxaa arrimahaasi la yidhaahdaa khisaalulfitra baa la yidhaahdaa kuwaasoo alan kaga hadlay sheekhuyo wuxuu yidhi wacasharatun 10 arrimood min alfitra ay min asunna min sunan alambiya dhaqamada fiican ee nebiyada laga soo gaadhay ay tahay muslimiintu inay kaga daydaan ayay ka mid yihiin oo sunnayaasha laga soo gaadhay ambiyadu ma aha 10 kan oo qura rasuulku mar 5 buu sheegay marna 10 kan uu sheegay marka 10 kani waa ka mid laakiin way ka badan yihiin 10 marka la leeyahay waa min sunan al-anbiyaana ma macnaheedu waajib maaha waxay isugu jiraan kuwa waajib oo qofku haddii uu ka tago uu dambaabayo iyo kuwa sunno hadduu sameeyana ajar uu ka helayo haddii uu ka tagana ajarkii uu seegayo laakiin dembi aan looga qorahayn 5 arrimood ka mid ah sunnayaashaasi fi raasi qofka madaxiisa ay ku sugayiin wa 5 kalena fil jasad qofka jirkiisa waa 5 qofka madaxiisa laga rabo inuu ku sameeyo iyo 5 qofku jirkiisa kale inuu ku sameeyo ay tahay falati tafirasi madaxa ay tahay inuu ku sameeyo almadmadatu luqluqashadi weey sunnayaasha ambiyada laga soo gaaray bay kamid tahay luqluqashaduna waa in biyo afka lagu shubo kadibna biyo afka lagu wareejiyo sidoo lagu meedhayo kale luqluqashadu waxa ay tahay mid la jideeyay qofku marka uu weysaysanayo waxay kamid tahay acmaasha la sameeyo weysada dhexdeeda waxa kale luqluqashada la sharciyay qofku markuu cuno wax dhegdheg leh ama dufalo afkiisa ku hari kara rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari uu wariyey hilib loo keenay buu cunay caana ayuu cabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu luqluqday wuxuu yidhi inna lahu dasama
caanahani waxay leeyihiin dufan nadaafadii afka ayaa luqluqashadu qayb ay ka tahay oo afkii ayay maydhaysaa wixii markaa cunto ku dhegdheganaa ama ku harsanaana ama xogga hore u kaxaynaysaa qofku uu liqayaa haddii uu soo tufo biyuhu ku luqluqdina afka way ka soo saaraysaa walistinshaaqu weeyaan arrinka labaad waa sanka in biyo la geliyo dabeetana biyaha laga soo saaro oo sankii ayaa biyahaasi ay maydhayaan oo ay nadiifinayaan marka uu qofku weysaysanaya ayaa arrinta noocaasiina mashruucay tahay waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu ku xeel dheeraado qofku si fiican sankiisa biyaha u geliyo haddii aanu soomanayn hadduu sooman yahay se inuu ku xeel dheeraado maaha luqluqashada iyo sandaarsigaba wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima buuhi nebi maxamed ku xeel dheerow sandaarsiga haddaanad soomanayn wasiwaaku weeyaan arrinka saddexaad waa cadayashadii oo cadaygu wixii luqluqashadu aanay jar ahayn ee ilkaha ku dhegay ama kala dhex galay ama carabka qabsaday ayuu meesha ka saaraya inuu qofku cadaydaana waa mid ay shareecadu aada u dhiirigelisay waxaanuu rasuulku ku daray arrimaha ilaahay addoonka uu raalli kaga noqonaayo waa siwaaku midharatun lilfami mardaatun lirabbi buuri rasuulku cadaygu waa mid afka nadiifinaya oo daahirinaya ilaahayna subxaana wa tacaala waa mid raalli gelinaya waxaanuu rasuulku yihi sida bukhaari wariye akartu calaykum fi siwaak waxaan aad iyo aad idinku adkaynayaa cadayga inaad ilaalisaan oo had iyo jeer aala aad cadayataan xaaladaas iyadoo mar walba cadayashadu ay sunno tahay xaalado si gaara loo sii adkeeyey baa jira xaaladaha waxaa ka mid a qofku markuu weysaysanayo weysada dabadeed iyo marka uu qofku uu tukanayo labadaba ورسولك عليه الصلاة والسلام وحول السابق بخاري مسلم باي وريين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدانا كبقنا هين أمضي إذا إنا كعو ليسيو وحان كوا تشبين لها إنا عضيدان مركز توي تكنيان ويقفكو إلهي سبحانه وتعالى هو استاقيا جمع أبو إيمانيا جمع عاسو بني آدم يا ملائك بله ومساجد كتشوغا haddii markaa afkiisa uri ay ka soo baxayso mid muuminiinta iyo malaa'igtiiba dhibay buu noqonaya waxa kale cadayashada si gaar ah loo jideeyo loo sharciyeeyay marka uu qofku doonayo quraanka inuu akhriyo waayo quraanku waa hadalkii ilaahay weynayn buu mudan yahay ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب halka uu ka soo baxay marinkiisuna waa afka marka halka in loo hagaajiyo loo nadiifiyo weeyii waxa kale cadayashada si gaar ah islaamku u jideeyay marka afku uu isbedelo ilaa maqsuudka laga leeyahay waxa kamid ah afka lagu nadiifiye sida xadiidka ka muuqata midharatu lilfami inuu yahay waxa kale si gaar ah loo jideeyay qofku markuu hurdada ka soo kaco wuxuu xudayfa saxaabiga la yiraahdaa كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك رواه البخاري ومسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها مركو هردada ka soo kaco habeenkii salaatu leelka u kaco mid afkiisa ku mayro oo ku nadiifiyo cadayga waxa kale si gaar ah loo jideeyay cadayashada marka ninku gurigiisa uu galaayo Aisha radiyallahu anha ayaa la weydiisay Muslim saxiisa ku wariyay عن أول شيء كان يبدأ به النبي إذا دخل البيت شيء أوه الرأي رسولك كبلا بتشري مركو جوري الصاقله فقالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك وحاو كبلا بتشري إنه عضيده جوري مركو قالوا يحوقوا تجيا خير كيسي حاس كيسي وعلى ربا كالقعيل ينول وناكسنية يسقلا عن شو يقولوا بالسدوي إنه يود حيسه وجعل بينكم مودة والرحمة وحكستو تاميشا كساري كرا ونفوه إني كلا ديدان وإسكراهيستان صابو نغن كرا لابد اللماني وإني كفو قادان كرسولك وحو عضينا ياسي ريركي سواني وقدر يمين وحسبدلو حق أفكي سمركا كودعي ديتنا نفتو دواني وقددين حدو ملايين سا نينكا إسوغو سوقا يلي وقاد كورتيسي ديدكيسا يكسو بحيسو isagoo sigaar soo cabay ama afkaba ku haya oo cabaya
u galaya reerkiisii ee agjiifsanaya karaayo intee leeg iyo dhib intee leeg bay ka dareemayaan haddaanay hadal xataa arrinka shanaad ee ka mida sunnayaasha nebiyada laga soo gaadhay ee nadaafadana khuseeya iyo quruxda waa icfaau lixya weeye waa garhka in la sii daayo oo la farabadiyo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid leh garh weyn oo cufan isla markaana gadh aan gaabnayn waxaana taa u daliila saxaabada qaar baa waxaa la weydiiyey hal kaana nabiyu yaqra'u fi duhr rasuulku salaada duhur marka uu tukanayo miyuu qur-aan akhrin jiray markaasay yidhahdeen haa saad ku garan jirteen ila qur-aanka kor loo qaadi maaye qaaluu bidilaabi lixyati waxaanu ku garan jirnay dhaqdhaqaaqa garhkiisa markaa garhka qofka daba taagani uu dareemay inuu dhaqdhaqaaqayo marka koowaad garh ballaadhan inuu ahaabay taasi calaamad u tahay mar labaadkana garh dheer inuu ahaa garhku hadduu gaaban yahay dhaqdhaqaaqa uu samaynayo lama dareemi karo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam garhka inay raggu la baxaan oo ay sii daayaan aad buu u dhiirigeliyey ucfu lixa wafu lixa wafiru lixa akiru lixa khaalifu lyahuuda wاnasaara hadalladaasoo dhami waa isku macno dhammaantood waxay ka turjumayaan garhka in la badiyo in la dheereeyo in la sii daayo in la daayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yahuud iyo nasaare khilaafa ay garhka lama baxaan sidaas ayaa asal oo iyaga garhkuna sharaf buu u yahay ninka muslimkaa waana calaamadaha rag iyo dumarka lagu kala gartay lagu kala sooco xataa fi ljaahiliya ayaa carabi ay taqaanay garhku qiimaha uu leeyahay oo inankay ammaanayaane weli garhku aan u soo bixin waxay odhan jireen inankaa garh unbaa ka dhimana haddaanu garh iiba u helayn oo u soo iibin lahay garhka in la xiiro la muldhiyo sida rag badanoo muslimiini maanta ay sameeyaan waa mid culimada islaamku ay isku waafaqeen inay xaaraan tahay oo aanay bannaanayn maantana adduunyada islaamka iyo dhulka muslimiintu ay ku dhaqan yihiin arrintaasi aad bay ugu faaftay rag fara badanna waxaa kadeeday makiinad iyo midi ay garhkooda la daba taagan yihiin waa kasta oo barya arrinta noocaasi kadeed iyo dhibaatay ku tahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafeen gaaladii bay shabbaheen wax xaaraanan loo ogolayn ayay ku dhaceen garhka in la sii daayay ayaa waajiba oo aan la xiirin wixii markaa tin gooni u baxay oo kale ama timanka kale ka dheeraaday oo kale oo shaad ka noqday isaga waa laga jari karaa wax dhibaato ma laha laakiin garhka ilaahay subxaana watacaala ninka uu soo saaray inuu daysto weeye xataa haddii uu dheer yahay garhkiisu hadduu dherarkiisu gaadho heer uu qofkii dhibaataynayo oo cuntadii uu ka dhex gelaayo oo dadkii uu la gelaayo oo dhibaato noocaasa uu ku hayo xaaladda noocaasa dhibaatada si qofka looga ilaaliyo waa laga soo celin karaa heerka noocaasiya uu gaadhay waxaa dib loogu soo celin karaa heer aanu dhib ahayn qofka taana culimada islaamku waa sheegeen walatii fi ljasad buu idhi arrimaha sunnayaasha nebiyada ka mid ah ee jidhka ay tahay qofku inuu ku sameeyo xalqulcaanati weeyaanta koowaad timaha cawrada hareereeda ka soo baxa inuu iska xiiro qofku wa natfu libtayni iyo labada kilinkilo timooyin timaha ka soo baxa inuu iska rifo markaa kuwa hoose xiiris bay ku fiican yihin haddii kale waxaa laga yaabaa xubnaha muhimkaa dhibaata inay gaadha haddii la is idhaahdo rifa kuwan kilinkilooyinkuna waxa ay ku fiican yihiin rifitaan waayo soo bixitaankoodan marka aan soo degdegahayn haddii la xiiro oo qofka rifitaanku uu dhibayna dhibaato ma laha wa taqliimu ladfaar iyo cidiyaha jaritaankooda iyo walistinjaa iyo qofku najaasadii ka soo baxday inuu meeshii ay ka soo baxday uu nadiifiyo u maydho iyo walkhitaanu xalaalayntii amaba se gudniinkii marka arrimaha noocanina waa arrimo qayb ka noqonaya qofka nadaafadiisa oo timahaasi nadaafad darro ayay qofka u soo jiidayaan cidiyaho dheeraada laftooduna sidaas oo kale haddii najaasada aanu iska marin markuu xaajo gutana waa nadaafad darro khitaanka laftiisu nadaafaduu qayb ka yahay
ninka haddii aan la gudin najaasada ayaa ku ururaysa diirka hoostiisa oo tahaaradiisa xataa ma dhammaystirmayso marka ragga tahaaradooda ayuu qayb ka yahay khitaanku ولهذا هو واجب الختان في حق الرجال رجا واجب بو yahay waxaan waajibaya marka uu qofku gaaro waqtigii salaada waxa weeyaan laga rabay oo toddoba jir marka uu gaaro salaadii baa la faraya marka waa in loo diyaariyo salaadii waxyaaba loogu diyaariyo khitaanka kamida oo tahaaradii baan laantii aan suurta galahayn في حق النساء والسنه واعتدال الشهوه ayuu keenaya dareenku inuu noqdo mid dhexdhexaad xumaantu marka inay faafto oo dumarka dareenkoodu intuu noqdo mid aad u sareeyo xumaantu ay faafto ayuu ka hortagaya culimada islaamka qaar koodna waxay yiraahdeen khitaanku rag iyo dumarba kala doonayo ku saabsanaadee inuu yahay mid sharci oo diinta kamid ah khilaaf kuma jiro adilada culimada u daliishadana waxa kamid ah xadiidka uu rasuulku idal taqal khitaanaan faqad wajaba waltaqal khitaanaan faqad wajaba alghusl labada meelood ee gudniinku ku dhacay hadii liqaa uu dhaxmaro meedhashadii baa waajibtay imaam ahmed rahimahullah wuxuu yiri taas waxay daliil u tahay labada dhinacba xagga rag iyo dumarka labadaba khitaanku inuu yahay mid mashruuc ah maanta barnaamij baa jira aad loo faafiyo dhaqaale badanna lagu bixiyo warbaahinta loo isticmaalo seminaaro soo noqnoqonaya la sameeyo arrinkaas oo ku saabsan la dagaalanka khitaanka waliba xagga dumarka kamarka caadada ahaan jiray al-khitaan al-fir'auni ka isagu sharci maaha qofka bani aadam kana jirkiisa in laga jaro qaybaan shariicadu waajibin in la jaraa ma banaana waana tacdiib kama aha quraka ay ka hadlayaan waxay diideen khitaanka asal ahaanba gabigiisaba wallahu a'lam waxana muuqata ujeedada ay uga socdaan inay tahay xumaanta iyo faaxishada iyo zinadu inay ku dhex faafto dadka muslimiinta ah waxaanu sheegay sheekh islaam ibn taymiyyah rahimahullah maruu ka waramayay faa'iidada khitaanka wuxuu yiri dumarkii tataarka waa qoladii ka yimi meel jeynaha u dhow ee dhulka islaamka soo weeraray iyo nisaa'ul frinj faranjiyiinta waa reer yurub dumarkooda faaxishadu aad iyo aad bay ugu badan tahay iyo zinadu waxyaabaha sababana waxa kamid ah khitaan la'aanta halka dumarka muslimiinta arintaasi ay kaga yartahay bisaabi al-khitaan marka waxay u muuqataa inay tahay nagala dagaalamayaan oo xumaanta dumarkooda dhexdooda ku badatay ay rabaan dhulkeena inay u soo raraan waxa kale oo barnaamijka noocaas dhex socda si fiican uga dhex muuqda in dumarka laga dilaayo xishoodka sidaas oo kale ragga laftooda oo gabadh baa loornaya halkaas soo istaago maanta oo dhan cawrada sharax nin baa loornaya isla halkaas soo istaago waxa dumarkii cawrada ku saabsan maanta oo dhan halkaas la soo taagno oo ka sheekay iyadoo wax daruura iyo wax xaajo haba yaraatee keentay aanay jirin rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam waxa mid aad iyo aad u xishood badan waxyaabaha cawrada ah in afka lagu balaariyo shariicada islaamka lagu ma yaqaan hadiya jaraale kelmad sarbeeba oo laga fahmi karo laakiin aan toos u sheegahay in baa la isticmaalaa quraanka oo kadalika rasuulku alayhi salaatu wasalaam afkiisa waa ka dhowri jiray waxyaabaha si cawrada ah wixii hatta hadii xukum sharci ku xidhan yahay si sarbeeban oo la fahmi karo ayuu buu sheegi jiray afka kuwa balaarin jiray marka waxay u muuqataa in xishoodka laga dilayo rag iyo dumarkii baa la isu keenaya xora seminar baa la idin qabanaya hay maxaanu sameeynaa waxaad ka doodaan khitaanka gudniinka iyo bal sida uu ku fiican yahay gabadhi baa leeyahay ninka kala muran cawradaada wixii ahayd in lagu sameeyo marka xishoodka dadka laga dilaya xishoodkuna waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan oo qofka xumaanta ka celiya waxa wanaagsanna sabab ugu noqda iimaanka ayaanu kamid yahay isaga iyo iimaankuna waa isku xidhan yihiin waa isku laran yihiin haddii iimaanku meesha ka baxo xishood jiri maayo walaada kufaartu ma xishoodaan inta badan haddii waxa weeyaan xishood la waayana iimaan ma jiro haddii iimaanku daciifana xishoodku daciifaya oo uu yaraanaya haddii qofka xishoodkiisu yaraadana macnaheedu waxa weeyaan iimaankiisa ayaa yaraaday والحياء من الإيمان رسولك والحياء شعبة من الإيمان
nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi timaha ka soo baxaa qofka bani aadamka jasadkiisa ama jirhkiisa waxay u qaybsamaan 3 qaybood qayb la amray qofku inuu jaro waa alcaana waa timaha cawrada dushooda ka soo baxa iyo timaha kilinkilooyinka iyo timaha shaarubaha oo qasu shawaarib timaha shaarubaha in la gaabiyo ayadana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray ucfu lixa waxfu shawaarib garhka sii daaya shaarubahana gaabiya alixfaana waa almubaalagatu fi lakhdi wey waa in jaristooda lagu xeel dheeraado in la xiiro oo la muldhiyaa ma fiicna culimada qaarkoodna waxay waa bidco sida imaamu maalik laakiin waa in aad loo gaabiyo weeyaan nooca labaad waa shacrun oo yunhaa can akhdihi kalixyati walxawaajib waa timo qofka ka soo baxa oo shareecadu ay diiday in wax laga jaro waa timaha garhka iyo timaha sunnayaasha iyagana in la jaro shareecadu way diiday nooca saddexaadna waa shacrun maskuutun canhu waa timaha laga aamusay waa timaha tusaalaan qofka ka soo baxa lugaha ama gacmaha xaadda ka soo baxda ama timaha laabta ka soo baxa ninka iyo caloosha iyo meelaha ah culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sidoodaa loo daynayaa haddaanay qofka dhibaato aanay ku hayn laakiin wallahu aclam siday u muuqato culimada badankooduna ay ku tageen timaha in la daayo in la jaro labadu waa inay mubaax tahay waayo waxa ilaahay u ka aamusay ee aanu xaaraantimayn asal waxa waa inuu yahay mubaax timaha ilaahay gooyana ma odhan daayana ma odhan marka in la gooyo in la daayo labaduba mid mubaaxa weeyaan oo qofku hadduu jarana ku dambaabi maayo hadduu daayana ku dambaabi maayo waxaa dhici karta qofka rag iyo dumarku doonayaba ha noqdee timihiisu marka hore qofka bani aadamka waa madow waxaa dhici karta cira inay ku soo korodho waxaa halkan uu kaga hadlayaa sheekhu cirada talow maxaa laga yeelayaa ma la rifayaa cirada gaar ahaan marka ay yar tahay oo timaha ma laga dhex gurayaa mise sideeda ayaa loo daynaya ma la bedeli karaa ciradii oo midab kale ma loo samayn karaa mise cadaankeeda asaa lagu baaqi yeelaya wuxuu yidhi sheekhu wayukro waxaa la karahaa nadfu shay baa la karahaa ciradii in la rifo oo timaha laga rifo madaxa ama garhkaba in laga rifo faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiidi xadiidka annahu nuurullah ciradu inay tahay nuurka ilaahay xadiidka lafdigiisu sidaa ma aha ee ciradu nuurulmuslim inay tahay ayaa xadiidka ku soo arooray marka nuur ilaahay qofka muslimkaa ku abuuray u yeelay weeyaan macnaheedu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tantifu shayb fa innahu nuuru lmuslim cirada ha rifina ee daaya waa nuur qofka muslimka ilaahay u siiyey oo qofka muslimka islaamka dhexdiisa ku ciroobaa daraja buu ku helayaa dadka uu kaga helayaa iyo ixtiraam iyo qadarin gaara ciradaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saa bukhaari wariyey ina min ijlaal illah ikraama di shaybati lmuslim ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a in la weyneeyo oo la ixtiraamo oo la qadariyo qofka muslimka ee cirada leh rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdo waa qof islaamka dhexdiisa da ku gaadhay weeye ilaahayna subxaana wa tacaala ajar buu qofku kaga helayaa ciradaa la yidhi daa ha rifina hadduu daayo waxaa laga yaabaa naftu inay jeceshahay ciradaa in la iska jaro oo la gooyo si aanay ugu muuqan calaamad tusinaysa qofkan inuu yahay qof gaboobay ama da noqday marka qofka amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam u hoggaansama ee ciradii daaya ajar buu ka helaya ورسولك وحده ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة قف كستو مسلم وإسلام كدحدي سعره كقصوا بحضه إلهي سبحانه وتعالى حسن يا أجر بوق قرآن وقف كي دايب على قهضية ورفع بها درجة إلهي درجة كرب قاضى أو حط عنه خطيئة إلهي سبحانه وتعالى الدنبي أيوك كقضافة marka qofka muslimka ay cirada waa inaanu rifin oo garkiisa iyo timistoona aanu ka rifin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo umri 360 sanadood ka gaadhay haddana ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala jirkiisa ka dhigay midaan calaamadihii gabowga aanay ka muuqan ومتعه الله سبحانه وتعالى بالقوة ولهذا رسولك وحو غيريودي
cirada madaxiisa iyo garhkiisa ku taala iyadoo mid la tirin karo oo 20 tin ama ka yar ay tahay cirada marka lama jari karo oo lama rifi karo laakiin midabkeeda ma la bedeli karaa midabkeeda waa la bedeli karaa laakiin laguma bedeli karo in la madoobeeyo madow khaalisa ورسولك عليه الصلاة والسلام وحا الله كان أبو قحاف وأبو بكر الصديق أبيه ويسمون الصحابيها وإسلامي وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان رأسه ثغام يوضا مدحي ساد مودد جيت كلا يراهدو وانعدك أما صونهنا ولا يراهدا وجيت أبح آدو عادي وكبحو بركيموين بي صوماليدو أي كسم يسنشيرين buuraha iyo meelaha maruu ka baxay uu ka fogay waxaad moodaysaa meesha inuu ari daaqayo marka madaxiisa oo cirbalay xaba rasuulka loo keenay faqala nabiga alayhi salatu wasalaam ghayru hada ash-shay wajannibuhu sawa ciradan badala buuri midabkan cirada cadaanka khaaliska ah madowgana ka fogeeya rasuulku alayhi salatu wasalaam qofku timiisa inuu madoobeeyo ama garkiisa ama cirra ku taal ama yaani ku oolin aad iyo aad buu uga digay waxaanu rasuulku sheegay ummadiisa inay ka mid noqon doonaan kuwa sidaa yeela rasuulku alayhi salaatu wasalaam kuwana aad buu ugu digay oo wuxuu yiri rasuulku alayhi salaatu wasalaam la yakunanna min ummati qawm yasbiquna bis-sawad waxa ummadeeda ka mid noqon doona kuwa timahooda ku midabeeya madow وحابد مودا مدحوده إنه يهي كحواصل الطير يعني شمبراس حمام كي يقول لي ده مدوغا هلكا عناء اكتساي كل يهين لا يجدنا رائحة الجنة أو لا يجدون رائحة الجنة كواسي الجنة أدو قيدة هلي مايا ويكقضيا تصل واحد دليل طاي تماها إلا مدوبيا إنه يتهاي الدنبي وين لكن مدب كيسكو تشيركا كتم كلا يراهدو ومدو يعسان اسكو جيرا ومدو وانو غالب نقون وعسان كيانو ميشا كسارين عسان كينا wax ka sii muuqdaan timaha waa la marin karaa saxaabadana waa ka sugnaatay inay isticmaaleen wuxuu sheekhu soo ka waramaya faa'iido cirradu ay leedahay oo cirradu aydan ku noqoshay nadiirul mawt waa mid qofka geeri uga digaaya oo qofka u sheegay geeridu inay ku soo dhawaatay وسيدا غالب كابو كورمي سحالكو وبدن يحي وقفكو مركو دا غادا انت بدن وعروبه لكن way dhacda mararka qaar kood qof da yari inuu ciroobo cirraanoodii wax lagu sheegaba waana dhacda nin da waa fartan jir dhaafay inaanu cirra yeelan laakiin sida غالب kaba waxay tahay qofka cirradu inay ka soo baxdo marka uu da noqdo marka cirradaas waxay u sheegaysaa inuu yahay qof adduunyadii ka sii socdo ka fogaado xagga aakhiro u dhawaaday culimada qaar koodna aayada ilaahay uu yiri wajaakum an-nadir digihiba idin yimi cirada ay ku fasireen ويقصر وحو soo gaabinaya al-amal rajada qofku uu ka qaba adduunyadan inuu sii joogo وعرض qofka waxay xusuusinaysaa inuu yahay adduunyo qof ka sii socdo oo ay tahay aakhirada uu ku sii socdo inuu sahay qaato وحاث مد كل رجال وين قفك على حسن العمل قفك عمل كيسا إنه وناتشيه ووقار وهيبت وعرضوا قفك هيبت بيوطاي ويكره واحد لكرا مسألة كرا كصاب صن تما هي أحكام توده يوالن كجهلا ما أنت ولي بهادي هذا نقول بهناي مسألة سوا مسألة كصاب صن تماها مضحة قيبة كم إذا إلا حيرة قيبة كلنا إلا الدايم حيرست waxay noqon kartaa xalq ila muldhiyo xaba lagaga tagin meelaha qaarkoodna timiha ay ku yaaleen waxa kale ay noqon kartaa in la gaabiyo wax nafle aan lagaga tagin arinta noocaas ayuu ka hadlo wuxuu way kuro waxa la karaha xalqul qafa qofku qadaadka inuu xeero waxa qordiidka loo yaqaan maanta qoorta shisha maaha laakiin madaxa xadkiisa تما كجرا إنه حيره أنت كلنا ودايو وحكرا لهم إذا إنه حقا هرا حيره أما هريرها إنه حيره بحدنا تما وكدايو دور ولهره ورسولك عليه الصلاة والسلام وحنا هي وحلا يقانا القزع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع
وحديث عبد الله بن عمر بخاري مسلم باي وريين القزعنا waxaa lagu fasiray xalqu bacd الراس madaxa timaha ku yaal barkood in la xiiro la muldhiyo ama base aad loo gaabiyo wax naflaan lagaga tagin rasuulku kaleey salaatu salaam arintaasi waa diiday arintaasina maanta aad iyo aad bay uga jirtaa dhalinyarta dhexdooda oo qaarkood way muldhiyaanba oo qaybo madaxooda kamida timii ku yaalay ayay xiiraanba qaybii kalena way daayeen qaarkoodna aad bay u gaabiyaan oo wax nafla kagama tagaan qaybaha qaarkood dhinacyada iyo qadaadka iyo timii kalena way joogaan arinta noocaasi waxay soo galaysaa arinta uu diiday rasuulku kaleey salaatu wasalaam dhinac kalena waxay ka noqonaysaa maanta ku dayasho gaalada lagu dayday qofka muslimka ayna kufaarta isaga ka sareeyo hoos inuu isu dhigo oo iyaga uu ku daydo waxyaabaha liitaan macnaha lahayn uu kaga daydo looma ogola rasuulkuna wuxuu man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum qolo qofka iska soo ekaysiya iyagu la mid yahay wuxuu kala mid yahay waxa uu uga ekaaday marka arinta noocaas dhalinyarta muslimiintu waa inay iska ilaaliyaan maxaa lagu diiday talo intimaa madaxa barkii la xiiro badhna laga tago ama inta la xiiray ha badnaato ama inta la daayay ha badnaatee culimada qaarkood waxa lagu diiday arintaasi waa tashwiih lil khilqa ilaahay qaab wanaagsan buu abuuray insaanka laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim marka timihiisi hadii qaybna uu xiiro qaybna uu daayo ama qayb aad u gaabiyo intii kalena uu daayo abuurkii ilaahay quruxda badnaa ayuu falxumada noocaas ku bedeshay culimada qaarkood waxaan yuhuud baa lagu yaqaanaa dhaqanka noocaas intimaa badna la daayo badna la xiiro qaarkood waxay yiraahdeen suurada shaydaanka ayaa sidaas inuu madaxa meelaha qaarkood tima ku leeyahay meelaha qaarkoodna aanu tima ku lahayn marka qofkii qof shaydaan iyo yuhuud oo ekaaday suuradii quruxda badnayd ee ilaahay uu abuuray fal xumeeyay buu noqonaya xaaladaha qaarkood bay banaan tahay in timihii madaxa meelaha qaarkood la xiiro intii kale iyadoo timo ay ku yaaliin xaaladahaasi waa xaalado xaaja ay keentay qofkii nabar baa tusaalahaan madaxa kaga yaal ama finan baa ka soo baxay madaxa qaybo kamida marka si loo daweeyo waa la xiiri karaa intaasoo timaha waa laga jari karaa iyadoo intii kale timo ay ku yaaleen waxa la mid ah qofku hadduu doonayo inuu istoobo halka madaxa kamida ee toobniinka laga saariyo timaha waa laga xiiri karaa rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam taa waa sameeyay taa marka xaaja ayaa keentay iyo baahisa awgeed baa looga soo reebay xukunka guud aad maqasheen illa liman arada mid doonay mooyaan alxijaamata inuu istoobo kadalika sidaas ayaa ruwiya lagu wariyay fi sunan xadiis rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulku ila timo ku yaala ma toobi jirin mana wada xiiran oo rasuulka oo dhukurtay waligeed bal lama sheegin xaj ama umro dhexdeed mooyaane marka waxa macnuu noqonayaa halku doonaya inuu iska toobo ayuu xiiri jiray rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka taas oo kale waa laga soo reebayaa wallahu a'lam wa ahka billahi tawfiq sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira